dhammaan martida meesha timid qof walba magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo heer wasiir heer wasaarad heer maamul heer hay-adeed heer waalid heer arday waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa farxad aadan loo ah masaafadii dheereed ama socodkii dheeraa ee 22 soo bilowday inuu maantay qaybtiisii koowaad ay soo gabagabowday. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaysan tii dambe noogu noqone aan mirihii dalkan wax ka bedelayay iskuulkaani ka mid noqdo. maxaa yeelay waxbarashadii hore ama jaamacadihii dalka ka jiray ayaan daro ma buuxin shaqo la'aanta jirta maysa buuxin. waxaanan hubaa 100% warkaasna meel iga qora 5 sano ee soo socda in jaamacaduhu isku bedeli doonaan dugsi farsamo. waxaan marka ku faraxsannahay inaan leading position ama inaan bilownay ama shaqo abuurka koowaad ka qayb qaadanay. waxaan leeyahay ujeedka macadka runtii JM-ka beekana waa ka hadlay. macadku baahi dalka taal oo qofka shaqaalaha ee warshadleyda ah dhismaha shirkadaha korontada ay qabaan baa ka jawaabtay oo oranaysay waxaan u baahnaa farsamo yaqaan. farsamaduna ragga da'dayda ah kacaankii warshadaha bilowday afartamiyadii wuxuu ku bilowday faransuu ka bilowday tareenno qalabka warshada. jaamici mukayf fadhiya ama professor wax kama bedelin ogaada. waxa wax ka bedelay waa farsamo yaqaan. farsamo yaqaan dalka waxa horumari kara inta qof aan tirino 1 iyo 2 iyo 3 ee aqoonta xirfadda farsamada leh. marka waxaan leeyahay dugsiga shaqo abuur ka sokow dhaqaalaha dalku wax ka macnaha wuxuu wax ka bedelay aqoontii dalka iyo fahamkii laga qabay. martiqaadkii nooga horeeyay waxaan keenay labeentii magaalada ama ganacsatadii ama decision makerskii ayaan keenno rag ka mid ah hadda nala fadhiya. waxaan weydiinay waxaan lagu nacay farsamada. maxaa lagu nacay farsamada? maxaa yeelay waxaan naxdin leh oo itaabtay 7 qof oo jaamacad ka baxday oo waalid dhalay ee dhaqaale aan haysan ee uu baryo iyo dhidid uu 7 arday kaga saaray jaamacad ee 7 baagamudo yihiin. 7 ay baagamudo yihiin. wax laga naxo weey. maxaa la yeelay waxbarashadu inay yeelataa la rabaa. maxaa la baran doonaa 5 sano soo socota? maxaa loo baahan yahay? waa in la qiyaasaa. annagu hadda ma soo saarna arday shaqaan u wada haynaa biidnillaah. waxaa arbacadii bilowday dufcadii ugu dambeysay in interview laga qaado. 90 arday baa loo yeeray oo macadkan ka qalin jebisay. waxaa loogu yeeray sawiradeeda qayb ka mid a meesha ku arkayseen oo interview laga qaado. 75 ayaa practicalka imtixaanka timid. inta kale waxaan tuhmaynaa qaar la ognahay inay suuqa shaqada ka heleen. waxaan markaa u mahad celinayaa tiimka NIS Foundation oo si dhabar adayga hawl adag aan wada qabanay. runtiina miraheeda ayaguna ay ku farxi doonaan annaguna aan ku farxi doono mujtamacuna uu kaga jawaabi doono. waxaan leeyahay mama aad u qurux badanaan aad u jeclaha jirta aqoon horteed igar ahow weligaaba PhD order ahow weligaaba engineer ahow haddaadan duntaadu ay tahay mid jilacsan weligaa shaqo ka qaadi maysa. laakiin ilaahay intaa ka dhibanaysa oo ku arsaaqa. horta laba kala saar. arsaaqda inta jidinkaa jira waa helaysaa. shaqo soo maaha. waxaa cajiib leh dhalinyaradu inay mar aan wada hadalnayn ku fakerayn. uma baahnid beeko uma baahnid shirkad kale koronto 100 qoys oo dariskaaga ah wargeli ilaah korontadan kuu soo bartay ee daxliima ay dhashay korontada ku sameeyo haddaan 300 400 dollar fudud kugu soo gali weyso beeran ku sheeg cidna ha ka sugin
waxaan aad uga mahad celinaynaa hadda shirkadihii solarku inay fadhiyaan waan filayaa shirkadaha solarku waa ka mahad celinaa shaqo siintu kaliya ma aha beeko waxaa shaqaale naga qaatay solar jane tamarso waa u mahad celinaynaa waxaa naga qaatay delta blue flag ayagana waa ballan qaadeen ardayna way keensadeen 7 arday oo tababarka ku jirtay keensadeen marka niis waxaan leeyahay mahad dowladda Sweden barnaamijkan keentay wasaaradda shaqada iyo shaqaalahuna waa organizer ka ahayd mashruuca cidda keentay ahayd cidda saxiixday ayagay ahaayeen cidda hadda aan u daba joogno shahaadooyinkii iyo mashaariic kale oo waxtar u leh inay u keento ummadda Soomaaliyeed iyo ubadka waxaan leeyahay marka safarkii dheeraa ee aan soo wada galnay wasaaradda Nice Foundation sida maanta inuusan ku ekaanan rajaynayaa wada shaqayn iyo waxtayo nis runtii waxaan leeyahay iyagana hambalyo waxa ka shaqayseen miraheedii maanta waa haysiin waxaan ballan qaadaynaa inta 175 arday sida GM ku ballan qaaday sida beeko ka jawaabtay ninkii ku injineerkii ku shaqeyn lahaa maanta idin war fadhiyo inaan ku hubino inay shaqo wada helaan waxaan kalmadii ku soo gabagabeynayaa ardada fariin gaar ah siinaya doqon had noqon niyadaadu isa gaaban shaqo magaaladii dhoobanta waxaan idin doorbidayaa oo haddaan maanta booskiina fadhiyo qaadan ah inaan iskii u shaqaysto ee aan contract saxiixin laakiin beeko kii caajisa kii xaafadda ka shaqaysa waaye waa idin qaadanayna annaga idin tilmaamana aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu